ولا الدباسة واي هوغا أبارتا كليلك كلي كينتاي بحالة أنه يقولي دتا عيالك iyo hooyooyinka uu reeydi iyo ummadii iyo nafaqa darra hayso aad bay u liitaan waan gartay imisa caruur ayaa hadda xaaladaasi ay soo ridatay dhibaato gaartay ma jaro ciyaal badan oo hadda isbuuca u dambeeyayna haatee ciyaal badan baa meeshan ku geeriyooday oo kolley ninkii wadkiisa galo baa dhimanay nafaqa darro baan hadda aan u lug saarayna deegaanka xaarxooday wax isbitaal ma laha miya isbitaal maya wax caafimaad ah wali ma aanan haleelin meel wax yar oo marmar xagan ICF ay magaago keenaan oo naguna badnayn oo adu laba isbuuc markaan joognaba bari hadda dhaarahan wuu soo bilowday caadina ma aho waa shaqaalaha kuma lihiin oo kolley dadkii uu noo keenayay waan dhaliilayna faqdaradaas oo haweenka iyo ciyaalka u badan wayna haysaa oo manana waa aad baa dadka oo nagu hayaa oo meel aan lahayn tag u dhaweyn oo hayjada oo biyo la'aan aan ka jirin baan yaan horta ku noolnoo joognaa waan gartay marka xagga biyahana dhibaato aad fudud baa naga haysata nafaqa darrada hooyooyinka iyo ilmaha haysana iyadana waa noo gaar marka kolley abaarta iyo hadee saamaynta dhibaatada waxa uu la qadnaadaan umalayn deegaamaha gooyaha anaga laakiin anagu oonkaas iyo nafaqa darradaas yaa noo dheeri midda kale waan xoogaa shaqaalahaanan lahayn oo caafimaadku mar bariga hayse ay seegtaa wax yar ay naga soo daakhilaan mooyeene ilmaha isbitaal dhawo noola cararna xitaa nooma dhawo waan gartay marka xagga biyahana aad baan uga tabaalaysannahay meelaan haddii ceel lahayn oo berkado gacan ku qodahoon 4 sanaba aan biyo gelin baa yaa hadda ka hor yaan ka cabi jirnay 4 sanana biyo ma gelin marka hadda hunuf kulul lagu bilowday oo meel yar dabayl ahoo waxaan deganahay yar banaan qorax ahoo hadda ciyaalku wixii hadda korayso wixii u liito shuban biyood baa ku dhacay oo aad bay ciyaalka iyo haweenka u reeyda ay tabar yar yihiin waan gartay maamulka deegaanka oo deegaanka xaarxooday ma jira wili wax dhaqdhaqaaq oo ay sameeyeen dhaqdhaqaaq oo abaabila ma aanan gelin barakacyo fara badanna wayna soo korhabsadeen oo dadka xoolo dhaqatu dadku u badnaayo xoolihii markay haaqmeen dadkii barakacay oo meelihii wax goobihii ay u jidadka dhexdooda ahayd baa la isugu oo dad fara badan baa na soo korhabsaday hadda laba boodada baryaha noo bilowday waxba nagagama soo hagaago jirigaan la hoos orod weey waan gartay deegaankiina xaarxooday ilaa xilliyada roobaadka inaad biyo kaysataan mooyaane biyo kale oo meel kale aad ka heshaan male maya wax booyado oo biyo dad reerka dhaqankiisa waad garanaye waan gartay hadda maxaad codsan lahaydeen idinka waxaan codsan lahaa inaan u baahannahay haddii aan heli karno ceel iyo nafaqo xagga ciyaalka iyo hooyooyinka waan u baahannahay haddii daryeel caafimaad aan helayno iyo haddii ay biyo naloo awoodi karaba ceel riig waan u baahannahay aad baan ugu baahannahay 100%